intii dhulkii dhamaa iyo cirkii iyo dhulkii iyo meel kasta ka dhigay blue ka dhigay wada blue ka dhigay waxa weeye waa mahadsantihiin garaadadiina salaamayna cuqaashiina salaamayna war Soomaaliya arka wanaaga iyo wadajirka ay midnimadu leedahay horta lagu qoys qaato la arko waa kuwaas reer Sool iyo Sanaag midnimada ka muuqata arka dadku haday midoobaana cid u soo dhawaan kartaa lama arko marka tan waa dabeeshii arbeed baa la dabeeshii carabta ka kacdo kale weeye waa dabeel midnimo waa saxan saxo israac Soomaaliyeed kii kiciil qabo waxaan u dhimo waa israac Soomaaliyeed dadkan waxay ahaayeen bridge bay ahaayeen isku xira Soomaali midnimada Soomaali dhaxtaal udub dhaxaad waxa uu ahaa dadka Sool iyo Sanaag degaa waxay u yihiin dhaxtaal u ah marka aad bay u mahadsan yihiin walaalaha nagu dad Soomaaliyeed waa garab taaganahay shal waa garab taagneen maanta waa dhiirigelinaynaa diyaaran u ahay aniga xasan waliya markaan iska hadlo aniga aan dhaho ushii midnimada iyo wadajirka iyo qaranka Soomaaliyeed iyo hoggaanka Soomaaliyeed dadkaas u dhiibay ayaga iga tashay saacadan laga bilaabo waa dad Soomaaliyeed oo biyuur ah way waa dad Soomaaliyeed oo dhalada way kuwa kale anigu waxaan dhigi karaa waa shushub marka runtii idin sheego waa shushub dhigi karaa sababta ay tahay dad Soomaaliyeed oo saas calankooda iyo midnimadooda u jecel oo calankii aan aragnay ee 20 kilomitir la sii waday dhirirkiisa la sii waday dad intaas sameeyay qof bini aadam oo kale Soomaaliyeed oo saas calanka u jecel oo saas yeeli kara maba jiro marka Soomaali dhalada oo dhaba dadkaas way hal ogaad dadkaas waa dhalad waa Soomaali dhaba way kuwaan kale oo meelaha ku hayno shushub way waa shushubo inay shushub yihiin waxa kaga daliil ah waa kuwa aragtida hadda meel loo raacaho maalin calankeeya wato oo maalin calan Itoobiya wato oo maalin calan Imaaraad wato oo maalin basi ah laakiin dadkan dad mabda'oodu ku dhagan calanka buluuga ah ku dhagan ee ku tacasubaya waxa waaye waa Soomaali dhaba waa hoggaanka Soomaaliyeed aniga waa ka dambeeya saacadan laga bilaabo ayaga hoggaan ah hoggaan anigu qofkaan arko ee midnimo Soomaaliyeed iyo calan jecel iyo dawladnimo raba ee dalka kuwaas hadii maan dalka loo dhiibi lahaa qabki iyo sharafti iyo quruxdi Soomaaliyeed waa soo noqonay runtii marka dad saas calankooda u jecel lama arag lama maqal oo aan reer Sool iyo Sanaag waana buundadii isku xiriisay midnimada Soomaaliyeed dadkaas waa ka dambeynaa gacana idin taagnay sharaf ku noolaada hoggaanaan loo tihiin wadaniyiina tihiin Soomaali dhaba oo dhaladan idinka asharina xornimadii Soomaali iyo gumaysigii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga dadkii la dagaalamayo koow idinka ka ahaa been la sheego lama rabo in been la sheego lama rabo taas waa taas marka waxaa la yaab leh waa photoshop saacadan laga bilaabo waxaan u bixineynaa nimankaas reer waqooyi waxaan leenahay reer photoshop waa photoshop weligay talo kale ma arko wallahi billahi taala waxaa kaloo jirta dadka ma arkin qumayada qaba iyo dadka sixirka qaba iyo kuwa laga dhaxalo laga dhax qeelsho iyo quraanka la saaraa waa lagu jahraa mataqaan ilaahay kuma samadiideen quraan la saayid kursi lagu akhriya dhagaha lagu afufa markaas qumayada ka baxdaa iyo sixirka u baxaan waxa waaye Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin iyo raggaas waqooyiga in war cadda iyo kuwaas arkaysaan ayaguna sidii sixirka iyo isha iyo qumiyada quraanka loogu saaro yaa ayagana calanka buluuga ah hadii la tusay ay ka baxayaan ayaguna waa ka baxayaan marka ayaguna taasaan isaga xijaaba
هداد أركتان موسى كاهد إيو محمد كاهد إيو موسى بيحي إيو إلا ورا عضية داد أركتان مربلو أسوقات بس عيقا أردايه هداد أسوق حرتان مربلوغا واتقين كواس انتاس waa intii muqdisho aan u soo noqono marka muqdisho u soo noqono maanta waxa muqdisho ka dhacay hoobiyaal duqeyn balaaran ayaa muqdisho ka dhacday dad masaakiina ayaa wax ku noqdeen inkastoo wariyaashii xamar ka soo hadli jiray markii hore waxay ahaayeen jabhadii wariyaal qabiilaysan ay ahaayeen wariyaashu waxay wariyaal qabiilaysan ay ahaayeen wariyaashii qabiilaysnaa waxaa la dhahaa jabhadda warfaafinta la dhahaa jabhaddii warfaafinta ahayd shalay laga joog waayo waa ku jireen maanta waxaa waaye jabhaddiyaa qabsatay dalka marka saas daraaddeed jabhaddii qabiilaysneed ha ka sugina inay war soo daysaa ha ka sugina waayo shalay waxay ahaayeen warbaahinta jabhadaysanay ahaayeenoo beesha ay leedahay marka haddaan hawiyan nahay haddaan hiraab nahay haddaan habagedir nahay nimanka dhahaya waa jabhaddii maanta waxaa waaye dadkoodiiyaa madax u noqday taliska nabad sugidda wasiir ku-xigeenka warfaafinta wasiirka madaxtooyada wasiirka arrimaha gudaha waa jabhaddii marka yaan war laga sugine warkii annagaa idiin hayna annagaana sheegayna manana aamusi karaan kuwii shalay hadlayan ayagay ahaayeen maantana ayagaa aamusano danteenna haysanaa waay maanta danteenni ayaan haysanaa laakiin jabhadda warbaahinta dadku idin barteen aniguna shalay hore idin ogeyn maantana waa idin ognahay waxaana idin sheegaynaa wixii dhacan annagaa sheegayna waxba lama qabane waa isla ayagii kuwii shalay qeeldhaamiha iyo idaacadii hadlayeen waa isku beeshi abaayo lama qabane go-aanay gaareen waa inaan wax la sheegin oo walaxaad inta aan la dhihin laakiin annagaa sheegayna maanta taas horta hala ogaado maahane wariyaasha waa la afduba iyo waa la qabtay iyo kuwa laqabaha oo la xirxiraa waa kuwa masaakiinta ah ee xamar qabaa'iloodu ay ku yar yihiin waay ma garatay sida gaaljacelka baadicaddaha dadka kale oo masaakiinta ah wariyaasha sheeqaasha oo kale weeye laakiin tan jabhaddii waxay ahayd warbaahinta ay beeshu laheyd waaye oo wax walba lagu macaarado markay ayagu aysan talada haynin markii talada ay qabtaanna ay aamusaan wixii dhacaaya dilka falxumada dhibaatada kulli annagaa sheegayna marka annagaa sheegayna marka alcadaalo annaga inta noo yimaado afka hana qabto lama qaban karo maanta hoobiyaasha lasoo tuuraan ka bilaabayaa hoobiyaasha maanta lasoo tuuro waxay ku dhaceen xaruntii ex fiyoore la dhihi jiray ee ay deganaayeen badanaa ay deganaayeen fanaaniintii qaranka soomaaliyeed intii nool iyo intii dhimatay ehelkooda waxaa kaloo degan hadda kooxo ku qamaamay oo qabsaday berigaas qayba ka qabsaday fanaaniintii qaara qaxay oo carruurtooda la baxay guryihii banaanaana haddee jabhaddii warbaahinta jabhadihii ayaa qabsaday oo marka waa laisdhex degaya marka fanaaniintii aan bixinoo qaarkood iska masaakiinta aan bixinna weli waa degan yihiin kuwa billa ku degana waa degan yihiin horta meeshaasu dad badan ayaa wax ku dhinteen kuna dhaawacmeen oo ay ku soo dhacay hoobiyihii lasoo tuuray wuxuu kaloo ku dhacay hotelkii syl wuxuu ku dhacay meel u dhow xaruntii degmada wardhigley wuxuu ku dhacay xamarweyne iskuul ayuu ku dhacay ardo iyo naag masaakiina oo meesha sambuus iyo bijiye ay ku gadaysa ilmaha iskuulka wax ka gadda ayaa wax ku noqdeen taas waa taas balqabsada annaga adisiina wixii rabooda meesha ka yimid waxaa la yaab noqotay waxaan arkaynaa hadda in isku dhac uu jiro beeshii caalamka nimanka lagu sheegayo iyo kuwa kan maadaama ay culays ku saartay beesha caalamka in xasan waxa uu hayo joojiyo oo dalka midnimadiisa iyo wanaaggiisa uu ka shaqeeyo waxaa dhacday marka afhayeenkii booliska maanta waxaa lagu qasbay oo waxaa tidhaahdaa hoobiyahan waxaa laga soo tuuray xalan bal ilaaha idinku dhaashee waa photoshop oo kale waa photoshop
waxay dhaheen hoobiyaha waxaa laga soo turay xalada kuwii xalala joogan waa iska beeniyeen haddana waxaa xalal ka socota markay darseen amni darrada iyo dhibaatada ka jirta iyo in shabaabkii iyo dowladdu isku maran yihiin ummahad salaad iyo xubno al-shabaab ay og yihiin ay shaqaynayaan waxaa go-aan lagu gaaray hadda beesha caalamku in shaqaalaha safaarad kasta shaqaalaheeda aan muhimka ahayn inay celiso oo la yareeyo shaqaalaha la yareeyo waayo amni darrada jirta aawadeed ayaa la rabaa in shaqaalaha la dhimo safaaradaha ee hadda xalna ku xaraysan taasna waa taas horta bal ogaada qodobka kale wuxuu yahay oo aan rabaa in halkan ka sheego maanta galabta ayaa mahad salaad wuxuu u tegay ciidankii laga keenay eritreya oo gadoodsanaa ayuu u tegay si uu u soo dejiyo xabado ayay ooda kaga qaadeen waa iska raacdeeyeen ciidankii maanta waa xaqiiqo waaye warkaas qof aniga iga dambaysiyaa la weydiin waayo anigu telefoonka dhegtaan ku haynaa saas wixii soo kordha wixii soo dhaca waana loo soo sheegaa waxay yidhaahdeen adal adiga taliyo nooma tihid mana ku naqaano nabad isugu dala ma hoos tagno taliska ciidanka xoog dalka soomaalida hoos tagnaa orod naga tag adaanba shaki kaa qabnaa xabaday hoos ugu dhigeen meesha ku carara marka waxay sugayaan odawaa iyo biixi inay u tagaan ayay sugayaan waayo ciidankaas waa lagu tuntay qaarra waaba goosteenba oo waa ka tageen waa firaaqeen mataqaanaa xaruntii maslax ee la geeyey kuwa hadda cabanaya waa kuwii ku jiray xaruntii kuliyaddii ciidanka ee loogu magac diray jenaraal gordon weeye hadda kuwa hadda maanta inta loo tegay galabta soo xabadeeyey mahad salaad way iska xabadeeyeen taasuna waa taas dhacday iyaduna dadka ku dhintay xaruntii gobolka banaadir dhimashada sida aan xaqiijinay waa 25 qofood dhaawacuna waa 13 sida aan ku helnay oo aan ka helnay cisbitaalada la geeyay dhaawaca iyo dadkii dhintay cisbitaalada la geeyay iyo dadkii ehelkooda iyo qaraabadooda ayaan xiriir la sameynay iyaduna waana loo cadeeyay laakiin waxaa nasiib darro ah soomaalida waxaad moodaa in naxariistii iyo islaamnimada ay kasii guurayso waxaan arkaya guriga gobolka banaadir niman daaqadaha ka soo boodaya sida aad arkayseen waxaan arkaynay gabdho midhaa iyaguna soo booday oo dhulka jiijiifaan arkaynay ilaahaan idinku dhaarshay damiirka iyo dadnimada iyo islaamnimada midnaba qori mayso nin weynoo shaati cad watay oo arkaya soo booday oo gabar ay ag jiiftay gabadhii inta ku leexda abbay saa lagu hayaa iyo saa tahay midnaba ma dhihin inta halkaas ka soo booda soo calo weyn oo sarjugii u dhacay oo haddana fijig gabartoog ku dalaabsada war gabadhaa miskiinta in adeertaa ah war meeshaasay taallaahay wax ku dhacay ma jaban tahay hadday jaban tahay xataa oo aad ordaysa adiga xataa gabadhii gacanta qabeel la fako ee garabka saaro ama istaaji ama xataa saas uma fiirin sayta xataa ma dhih waa waxyaabaha damiir xumida waa ilaahay ku dhaarshay aad iyo aad u damiir xum waxaa kaloo jirta in ciidankii eritreya laftirkooda loo marmarsimooha hadda waxaa loogu marmarsimooha waxay tahay maanta muqdisho waxaa suuqa la soo gelshay oo ay soo gelsheen kooxda damjudiid ay soo gelsheen waxay yidhahdeen nimankii weeraray gobolka banaadir waxay wateen tuutihii ciidanka eritreya ayay wateen yidhahdeen ilaaha idinku dhaarsheen nimankaas dhar cagaaray wateen meesha galay kuwa tuutaha eritreya laga keena waa tuutihii saxaraha la yidhaahdaa wadamada carabta dhulka saxaraha oo cagaarka aan lahayn tuutahaasay wateen cadcad oo loogu talagalay saxaraha ayay wateen maanta waxay ku sheekeyhayeen oo ay rabaan wixii ka dhacay inay dusha ka saaraan ciidankii ka yimid eritrea waxay dhaheen dharka ay wataan dharka waxay ahaayeen oo muxuu ahaayeen ciidankii eritrea ilaaha idinku dhaasheen
halkaasay ka joogtaan nimankaas iyaga ah, iyagaana shabaabkooda ah kulligood. waxaa kaloo la yaab leh oo maanta lala yaaba waxay ahayd shirkii la yidhi culimmada ayaa loo furay. shirkii culimmada waxaa igu soo dhacday doorashadii nimankii waqooyi galbeed doorashadoodii oo maaska iyo cimaamadii oo kaamidoodta soo xirtay saas wadayaal codka bixinaya. culimmadii maanta meesha joogtay waad arkayso inta cimaamad madaxa la soo saartay oo kaada gastay maaskaan la xirtay saas loo wada yaalo. wadaad haddaba cabsahaaya oo wejigiisa in la arka diidan asuguba gambahayo gacmo ku gabad ah, ilaahay idinku dhaashay xaqa uu sheegi karo iyo ummadda wacdi karo iyo xaqa uu sheegi karo bal idinku noo macneeya sheega, bal noo macneeya. wax uu sheegi karo lama arko. wadaadan ilaahay ku kalsooneen oon ajasha aaminsaneen oo inuu dhimanayo aan aaminsaneen oo wax u bartay diintana kuu sheegayso in la dhimanayo la noolaahayn, inuu bini aadamta ka baqo wejiga xirto sidii doorashadii reer waqooyi galbeed saas afka maaska wada xirto ilaahayna ku dhaasheen ka warrama. wadaadkaas xaqa laga sugaaho bal sheega idinku. sheekh somow oo hadlaya arkaya asagana. sheekh somow waxaa waaye sheekh maahane waa nin qabiili ah waayo oo qabiilki maanta in adeerkaya talada dalka haaya wey asu macnihiisu waa sidaas. waa ninkii aada ogoodeen oo sharcigii jinsiga ahaa u tegay gabadhii guddoomiye ku-xigeenka baarlamaankeed sacdiyo oo arrintaas ololay haysay ee yidhi wax ka jira ma lahan arrintaas iyada ah, difaacay sharciga jinsiga. kuwaas marka ma culamaa ilaahay idinku dhashay kuwii shalay difaacayay sharciga jinsiga? innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. war wadamo badanoo kiristaan ah oo ay ugu horeyso dowladdan aan dariska nahay ee uganda ugu horeyso ugandadan ayaa Yoweri Museveni inta loo keeno intuu ku qososay warqadda jarjaxooriya ardana dhaafa. ninkaan artay Museveni waa Christian waay, laakiin ilmo asaga la dhashay kubaho islaam ahaa jira. walaalkiis asaga la dhashay waa jaran kale ciidamada waaye, waa walaalo waa walaalkiis islaam waaye, waa muslim. asagoo waa ninkaas masiixiga aad diida sharcigaas iska dhaaf meel kale ha aadinaba kaasaaba diida. marka kuwii sidaas ahayo afrikaanta ahayo anagu aan ka diin badannahay kana aqoon badannahay kana caqli badannahay iska fogeeyee annagiyo islaam ah oo 100% islaam ah oo aan shareecada islaamka haysano ku dhaqanno oo diin leh in shaki nala geliyo oo leeyahay ma qaadanaa ma iska dhaafna amaba la soo gasho wax noocaasaba naloo keeno. waxaa waaye diin xumada iyo damiir xumada dadka qaarkood ay leeyihiin waay. maxaa u daliila waay? waxaa u daliilaha waxay tahay xasan sheekh markuu joogana shacas waa la keenay meeshaan lacagaa taal. marka xasan iyo kuwa lamida waxaa waaye lacag meeshaan ma taalahaa waa gelaynaa waay. cabdiraxmaan cabdishakuur oo wadaad suufiya ahaan jiray kadib ka baxay suufiyadii ee al-itixaad galay ee ku wareeray ee ka tegey ee al-ictisaam galay ee ku wareeray ee ka tegey ee salafiya galay ee ku wareeray ee ka tegey yaa haddana qoladii kaleo ii sheeg magaca baas laheedoo dalagalay. intaas waa hunguri amay qoladaas ka lacag badan tahay amay qoladaas ka timir badan tahay. diintii iyo caqiidadii ilaahayna siiyey oo caadiga ahayd lama yeelin. waxaa laga doonto waa hunguri qoladii wax ku siisaa maanta aad diin aad ku raacaysaa aad leedahay diintaasaa saxan madhabkaasaa saxan kii wax ku siyaarada waa saxan yahay. ninkii sidaas ahay qur-aanka dhameeye ee haddana axkaamtii bartay iyo shuruucdii bartay yaa markuu jarmalka joogay axaadiistii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo
cad oo saxiixulbukhaari iyo saxiixulmuslim ku yaala oo cad inkiroo yidhi wax ka jira waa hargeysa faalsa ah ay culammadu jawaab kala soo baxaan markay gabdhuhu rabaan inay xoogaa ay riixaan faalsa ah asagoo og waay asagoo og xasan sheekhna isagoo og inay tanu dembi tahay yuu wuxuu ka doortay inuu xoogaa lacaga ka helo lacagtaas 10 milyan oo dollar ah oo la bixinayay oo ay bixinaysay Norway bixinaysay iyo Holland ayuu ka doortay hore idinku sheego kuwan haddii yiraahdo gaalooba oo diinta ka baxa intaasaa bil kasta maanta haddii xasan sheekh la yiraahdo gaaladu waxay ku ballan qaatay madaxweyne abadin inaad Soomaaliya ka noqotid oo weliga aadan dhici maysid ay xasanow diinta islaamka ka bax halkaas intuu istaagay diinta waa ka bax abciidsan waayo dhaqankooda saansaantooda yaa arag ina cabsikuur dalkaas soo istaagay markii dambe alla cafiyo waa dambaabay xaashada ka keenay bashar waxa ka keenay adoo aqoonti leh oo diinti leh soo ma aha inaad iska gadid islaantii jarbalka ahayd waxaa kaloo jirta markii arrintaas ay dhacday meel kasta Twitter u diro oo leeyahay aniga waa la dhaartay saasaan iri waa la dhaartay waxa waaye nimankii mitidka ahaa idilaya islaamiyiinta idilaya wuxuu raadihaa mudnaantii ay gaaladu siisay Salman Rushdie oo kale in mataqaana loo ilaasho oo isla guri tala dejiyo boqorada Ingiriis guriga meelta dejisan yahay kaan ilaasho islaamiyiinta dila intaas wuxuu ka raadiyaa feebar islaamnimadiis iyo diintiis iyo sharafkiisa gaaladaas amay wax ku taraan amay gaaladaas ay meel ku dejiyaan amay dhaqaale ku siiyaan gaaladaas oo dhaqankiisa u tagay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un alxaq waxa dhacay waa aadanka salaada cisha alxaq wax walboo dhaca wax kastoo dhaca caaqidadannadu waa halkaan ku haysanaa anaga qofka inta laabteena jeexda ka soo bixi karta ee islaamnimadana halkaas ka bixi karta oo tirtiri karta oo la heli maayo anigu halkaan diinta ku haysanaa halkaan lagu jiro islaaman ahaanina islaamnimada ku dhimanayna iska bedeli mayno diinteena iyo mataqaan axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam yaan ku dhaqmayna waana ku dhaqmi jirta waana ku dhaqmaynaa inteena nagu jirtaa gaal iyo nijaaso iyo malaayiin dollar haddii halkaas la soo dhigana shareecada islaamka uu tegi mayno laakiin kuwan iimaanka alla ka qaaday markhaatiya marag idinkaa u ah sal ay leeyihiin lama arko meel ay ku nagaaheen lama arko maalinba maalintii